sidee diyaarad xajmi weyn A routine flight oo sida boqolaal qof takes off into the night. si fudud loo waayi A karaa plane disappears. hal marna u qarsoomi karaan No wreckage, miyaa la aftuubtay no answers. miyayse dhacday Was it an accident? mise waa laga dambeeyey Truth hides. maxaase khaldamay The world is still waiting. mase la helay hadhaagii su'aalahaas iyo kuwo kale ayaynu jawaab ugu dooni doonaa xalqadeenan xogdoon oo ku saabsan qarsoonka duulimaadkii 370. This is a story about Malaysia flight MH370. waa saqbadh cadda ah saacadduna tahay 11 barhkii bishuna waa maarij 7deedii 2014 waana garoonka caasimadda waddanka Malaysia ee Kuala Lumpur waxaana habeenka garoonka ka kacayay diyaarad nooceedu yahay Boeing 77 iyo duulimaadkii 370 kadib markii diyaaradda la shidaaliyay lana raray waxaa la isugu yeedhay rakaabkii si ay u fuulaan diyaaradda oo ka baraadla waxa dhici doona qolka duuliyaha waxa saarnaa laba duuliye oo habeenka safarka ku qornaa midigta waxa fadhiyay kabtan Zahir oo ahaa 53 jir khabiir diyaaradeed ah oo 33 sano ka shaqaynayay duulimaadida dalka Malaysia kaasoo la sheegay inuu hawada ku qaatay duulimaad 11423 saac garabkiisana waxa fadhiyay wiil 27 jir ah oo caawiyo u ahaa kabtanka habeenka magaciisa la oran jiray Faariq oo duulimaadkani noqon doono kii ugu dambeeyay tababarkiisa duuliyanimo si uu u noqdo duuliye dhameystiran oo duulin kara diyaaradaha xajmiga weyn isagoo la sheegay inuu ahaa duuliye da'yar oo 7 sano ka hor bilaabay safarkiisa duulimaad kadib muddo diyaar garow saacadu markii ay ahayd 12:26 habeenimo waxa la hubiyay diyaaradii sida caadada ahayd waxaana laga furay jaranjaradii lagu fuulayay diyaaradda si ay duulimaadkaygu u bilowdo waxaana diyaaradda saarnaa markaa 227 qof iyo 12 qof oo ahaa shaqaalaha diyaaradda marka lagu daro labada duuliye intaa kadib kabtankii diyaaradda ayaa u jeediyay una jiheeyay wadadii ay ka duuri lahayd diyaaraddu habeenka halka kalkaaliyihii isaguna uu la wareegay wicitaankii iyo raadiyogii diyaaradda kolka ay rakaabkii xasileen hurdana u diyaar garoobeen iyo safar 7 saac qaadan doona Faaruq oo ahaa kalkaaliyihii ayaa la wareegay wicitaankii una sheegay hagayaashii hawada habeenka inay duulayaan intaa kadibna waxa hawada gashay diyaaradii wax walibana waxay ahaayeen kuwa caadi ah xidhiidhkii u dhaxeeyay duuliyayaasha iyo hagayaashuna wuxuu ahaa mid toos ah iyagoo dul heehaabayay habeenka hawada Malaysia saacaduna markii ay ahayd 1:19 daqiiqo ayna ku tuulayaan masaafo 35,000 oo fiid dherer ah ayaa kabtankii diyaaradda ee Suhayr wargeliyay hagayaashii hawada habeenka isagoo ku yidhi habeen wanaagsan haddaanu nahay diyaaradii waana saqbadh cirku aanu caad lahayn habeenkuna cadda yahay waxayna duurayaan badweynta koonfur galbeed ee China ilbiriqsiyo kadib kolkii uu duuliyuhu la xiriiray hagayaashii ayuunba hal mar hawada laga waayay diyaaradii oo ay ka qarsoontay dhammaan raadaaradii iyo hagayaashii kala duwanaa ee duulimaadka lagala socday ee saddexda wadan ee Thailand, Malaysia iyo Vietnam oo ay u jahaysay diyaaraddu dhankeega taasi oo sababtay in laba ka mid ah qalabka hagaha uu kala socday diyaaraddu ay ku tumi cilad ama si kaas loo badamiyay dhammaan isku daygii xidhiidh ee la sameeyay diyaaradana laguma guuleysan diyaaradii 370 waa la waayay kadib markii ay jadwalkii imaansho ee Beijing ay ku iman weyday waxaana la xaqiijiyay in dhab ahaan la waayay kadib dhawaaqa markii la sameeyay waxa loo kacay baadidoonkii diyaaradda iyo rakaabkii saarnaa oo jaan iyo cirib meel ay dhigeen la laayahay baaditaankaasna waxa laga bilaabay meeshii la islahaa way ku dhacday ama markii ugu dambeysay lagu waayay diyaaradda oo ay dul heehaabaysay oo ahayd dadweynta waqooyi ee Shiinaha iyo gacanka Thailand balse markii macluumaad dheeraad laga helay militariga Malaysia waxa la balaariyay goobihii laga baarayay diyaaradda taas oo lagu ogaaday raadaaladii militariga oo laga helay macluumaad dheeraad ah kadib markii loo kuur galay ee la waayay diyaaradda iyadoo la arkay inay diyaaraddu ka leexatay khadkii ama wadadii loogu talagalay dhanka midig kadibna ay uga sii leexatay dhanka bidix oo ay dib ugu laabatay meeshii ay ka timi oo ahayd Malaysia iyadoo ka talooday gabi ahaan jasiirad oo ka hib Malaysia kuna leexatay jasiirad yar oo u dhoweyd kadibna si toos ah u sii wadatay duulimaadkeegii ilaa ay ka qalsoontay raadaalkii militariga kadib baaritaan maalmo qaatay oo laga waday badweynta koonfureed ee China harada Bengal iyo badweynta Anandam iyo gabi ahaanba jasiirad oo ka Malaysia haba yaraatee laguma guuleysan lamana helin diyaaradii iyo rakaabkii halka baarayaashii kiiska ama shilku ay
tixraac iyo dib u eegis fara badan ku sameeyeen xogtii ay ka heleen duulimaadka, hadday tahay tii raadaalka iyo hadday tahay tii u dhaxaysay duuliyayaasha iyo hagayaasha diyaaradda habeenka. Waxaana la xaqiijiyey intaa kadib in diyaaradii ay 7 meelood uun meel taallo marka la qiyaaso, la iskuna daro xogihii la helay iyo xawaarihii diyaaradda kadib baadhitaano kala duwan oo ay sameeyeen ciidamada wadamada dhowrka ah oo lagu baadhayay nooc kasta oo gaadiid ah, hadday tahay maraakiib, doonyo iyo weliba diyaarado. 4.5 milyan oo kiiloomitir oo masaafo ah baa la baadhay, haba yaraatee wax xogana lama helin oo caddaynaysa diyaaraddaasi meel ay jaan iyo cirib dhigtay. Haddii la odhan lahaa diyaaraddaasi waxa ay ku dhacday badda, qalabka lagu dhegaysta badda ee duuba jabaqda shilalka haba yaraatee muu duubin wax jabaq ah oo caddaynaysa in diyaaraddaasi ay ku dhacday badda kadib markii la baadhay 4 saldhig. Sidoo kalena waxaa jiray oo ku xidhnaa diyaaradda 2 qalab oo lagu ogaan karo haddii ay diyaaraddu badda ku dhacdo oo lahaa baytari 40 cisho ah, kaas oo lagu heli karo diyaaradda meesha ay taallo. Nasiib xumase iyana wax guulah lagama gaadhin, wakhtiguna waa isgurayey. Waxa ayna isku dayayeen ciidamada baadhaya in muddada 40 cisho ah haddii aan ka gaadhin wax guulah ay adkaanayso in la helo haba yaraatee raadka diyaaraddaas haddii baytarigu dhaco. Nasiib xumase baadhitaanadaasi waxay ku soo gabagaboobeen guuldarro. 16 bilood kadib markii diyaaradda la waayey, jasiirad yar oo ku taalla badweynta Hindiya ayaa war laga helay sheegaya in jasiiraddaas shaqaale nadiifiye ka ahaa ay heleen bir ama jiingad 2 mitir ah oo badda ka soo caariday. Kadib baadhid iyo tixraac lagu sameeyey, waxa la ogaaday lana xaqiijiyey in birtaasi ahayd mid ku taallay diyaaradda, ahaydna mid ka mida baalasha diyaaradda oo markii la sii baadhay la helay serial number iyo weliba taariikh ku lifaaqan oo ku daawacan baalka. Inkasta oo ay jasiiraddu ka fogeed meesha loo malaynayay diyaaraddu inay ku dhacday, lana qiyaasay birtaas laheena waxa ay ahayd caddayn la taaban karo laguna kalsoonaan karo in diyaaraddaasi ay dhacday una dhacday badweynta Hindiya. Kadib markii la helayna birta diyaaradda, waxaa loo dhaqaaqay baadhitaan lagu raadinayo qaybo kale oo ka mid ah diyaaraddii, waxaana lagu guuleystay in la helo 33 qaybood oo kale oo ka mid ah diyaaraddii, iyadoo la xaqiijiyey 3 ka mid ah inay ahaayeen kuwo ka mid ah waxyaabihii ay ku dhisneed diyaaraddu. Haddaba yaa loo malaynayaa inay ka dambeeyeen shilka diyaaradda? Maxayse ahayd sababta ay diyaaraddu u dhacday? Su'aalaha jawaabtooda dadku waa ay ku kala ra'yi duwan yihiin oo qoloba waxa ay sheegtaa hadal. Kadib baadhitaanadii la sameeyey, waxaa la ogaaday 2 ka mid ah rakaabka diyaaradda saarnaa habeenka inay baasaboorada ay siteen ahaayeen kuwo la soo xaday oo loo maleeyay inay aftuubteen diyaaradda mar hadday ahaayeen tuug, balse baadhayaashii kiiska shilku wax caddaynah umay helin inay aftuubteen diyaaradda. Sidoo kale waxaa la sheegaa mid ka mid ah rakaabka saarnaa habeenka diyaaraddu inuu ahaa injineer diyaaradeed oo khibrad badan u lahaa diyaaradda, sidoo kalena awood u lahaa inuu aftuubto diyaaradda, iyana wax caddayna looma hayo. Sidoo kale dadka qaar ayaa waxa ay sheegaan in rarka diyaaradda saarnaa habeenka ay ku jireen baytariyo noocoodu yahay lithium oo keeni kara inuu diyaaradda qarax ama dab ka kaco, waayo sida la yaqaano baytariyada lithium-ka ka samaysani wax fudud in dab qabsado kana kaco, sida lagu arko gawaadhida kala duwan ee elektriga ah ee la isticmaalo maanta oo sida ay u joogaan un dab ka kaco sabab la'aan, iyo sida lagu arko duulimaadyo kale oo ay ku sababeen diyaarado in dab ka kaco. Sidoo kale dadka qaar ayaa sheega in shilka uu ka dambeeyey cillado ku yimi gudaha diyaaradda oo markii ay duuliyaashu ku baraarugeen keentay inay dib ugu laabtaan meeshii ay ka yimaadeen isla markiiba, balse taas waxaa beenisay inay diyaaraddu dhaaftay garoonkii ay ka duushay, oo haddii ay rabeen markiiba inay degaan waxay ku degi lahaayeen garoonka ugu dhow. Sidoo kale dadka qaar ayaa sheega in diyaaradda ay hawadu ka xidhantay ama oksijiintu, taas oo duuliyayaasha ku keentay inay kooma galaan amaba suuxaan hawo la'aan darteed, taas oo haddii duuliyayaashu ay kooma galaan ay jiraan ka hortagyo kala duwan sida inay jiraan hawo oksijiina oo si otomaatiga ugu xidhan diyaaradda, duuliyayaashana awood u siisa inay markaba helaan hawo daraya, awoodna u yeeshaan inay diyaaradda iyo rakaabkaba badbaadiyaan. Sidoo kale nooca diyaaradda ayaa awood u lahayd inay duulimaadka sii wadato qaab otomaatiga oo ay iskeed duuli karto haddii ay yimaadaan xaalada caynkaas, taas oo noqon karta sababta diyaaradda shilkiga ka dambeysay iyo laabashadii degdega ahayd ee diyaaraddu samaysay. Dadka qaar ayaa sidoo kale yidhaahda waxaaba ka dambeeyey shilka kabtankii diyaaradda ee Suhayr oo la sheegay in cadayme laga helay gurigiisii sida qalabka lagu barto diyaaradda oo laga helay wadooyin ka baxsan duulimaadka oo la isleeyahay maraa waa uu qaaday, balse taas waxaa beeniyey cadaymo la helay oo sheegaya inaan haba yaraatee xog kalifaya aanu jirin kabtanka inuu diyaaradda aftuubto amaba ka baxo nidaam
nidaamka diyaaradda iyo inuu ku kaco fal caynkaas. Sababtoo ah waxaa la sheegay inuu ahaa khabiir duuliye ahaa 33 sano, duulinayeyna keliya diyaaradaha waddanka Maleeshiya. Sidoo kale dadka qaar ayaa sheega in shilka ay ka dambeeyeen weeraro ciidan sida ciidanka Mareykanka oo duqeeyay diyaaradda, balse wax cadayna looma helin. Haddii taas ay dhici lahaydse waxay isku dayeen dowladaha kala duwan ee Mareykan inay qariyaan dhammaan afkaarahaas, iyo weliba dadka laga shakisan yahay waa ku tirikuteen, iyo qof kastaba waxay la tahay wax cadaynahoo lagu kalsoonaan karo lagama helin dowladdii diyaaradda lahayd iyo ciidankeegii, iyo weliba raadaaradii kala duwanaa ee wadamada ku hareeraysnaa dalka tilmaamaysa sababta shilkaasi u dhacay ilaa maanta. Waxaana la joojiyey baaritaanadii shilka diyaaradood ee 370 sanadkii 2017 iyada oo lagu daray kiisaska shilalka diyaareed aan la xalin. Sidoo kale isxilqaamayaal iyo shacab wadamo kala duwan oo iyana sameeyey baaritaan waxay kusoo gabagaboobeen iyana guuldaro. Wararka afduubkuna waa ku tirikuteen iyo mala awaal uu qof kasta u malaynayo, balse aan wax cadaynah loo haynin qarsoonka diyaaraddaas 370. sidaas baana lagu leeyahay ilaa maantana lama hayo meel ay Jaaniya cidhib dhigeen. welina may joogsamin isku dayga in la helo diyaaraddaas iyo rakaabkii diyaaradda qoysaskoogiina weli may ka rajo dhigin. haddaad ka heshay muuqaalada caynkana fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada, kana mid noqo xirta xogdoon oo la soco muuqaal cusub maalin kastoo Jimcaad. waxayna ku soo gabagabayn doonaa xalqadeennan hadalka mid ka mida qoysaskii rakaabkii diyaaradda oo ahaa maalin uun baanu rajaynaynaa in qof noo sheego waxa dhacay iyo inaan ogaano xaqiiqada dhabta. intaasuun baanu rabnaa, intaasuun baanan sugaynaa. One day, there'll be someone will come forward and tell us what really going on, the truth. That's all we want until we're longing for that, until the day.